the 8 parts of speech oo ka mid ah noun, pronoun, verb, adverb, conjunction, interjection, and preposition kooda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. YouTube channel-kan haddaad ku cusub tahay fadlan subscribe saaro, haddii horaan ila joogtayna fadlan please share garay muuqaalkan insha Allah meel waliba dunida aad ka joogto. muuqaalkan maanta waxaan rabaa inaan kaga hadlo inaan xilli dhow aan bilaawi doono insha Allah casharada grammarka hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah si ardayda mar waliba oo ku xiran channel-kan ay ugu faa'iideystaan English grammar. Grammarka insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan ku baran doonaa definition of grammar, qaabka loo qeexo iyo insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxyaabaha uu ka tarjumo. waxaan ku baran doonaa grammarka waxyaabaha uu u kala baxo. waxaan fiiri doonaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo the 8 parts of speech oo ka mid ah noun, pronoun, verb, adverb, conjunction, interjection, and preposition kooda. sidoo kaleeto waxaan aan ku baran doonaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo sentences structure, qaababka loo dhiso jumlooyinka ayaan baran doonaa insha Allah, ayagoon isticmaali doono the subject aan isticmaali doono, verb aan isticmaali doono, and object aan isticmaali doono insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. sidoo kaleeto waxaan baran doonaa insha Allah tenses, waqtiga ayaan baran doonaa insha Allah. tenseska aan baran doono waxaa ka mid ah hadduu Ilaahay yiraahdo past ka mid ah, present ka mid ah, and future. mid kastaba si u kala baxdo insha Allah haddana waan arki doonaa insha Allah. past waxaan u kala saari doonaa simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. sidoo kaleeto insha Allah present-ga waxaa u kala saari doonaa simple present tense, present continuous tense, present perfect continuous tense. sidoo kaleeto insha Allah haddii la yiraahdo future ayadana waxaa u kala saari doonaa simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. sidoo kaleeto insha Allah muuqaalkan kama maarnaa inaan ku dhex baran doono punctuation marks. punctuation marks waxaan diiradda saari doonaa insha Allah dhammaantooda sida comma, full stop, question mark, apostrophe, quotation marks, exclamation mark, hyphen, dash, intaan dhan insha Allah waan fiiri doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. sidoo kaleeto waxaan ku dari doonaa the articles, the definite and indefinite articles, iyo question tag ayadana waa arki doonaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. fadlan waxaan ka codsanayaa channel-kani inaad ku xirnaato si aad ugu faa'iideysato mar waliba casharada ay soo socdaan, because waa ku muhiim haddii aad tahay arday ama haddaad tahay qof daneeyo inuu barto luqadan insha Allah biidhnillaahi tacaala. marka muuqaalkani like saaro, subscribe garay channel-kani, meel fogna geey insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.